الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة waxaan maanta walaaliyeen xasuusin lahaa xadiis talooyin badan ama dhowr tala xambaarsan oo saxaabigii la oran jiray Mucaad ibn Jabal radiyallahu anhu nabiga kaleey salaatu wasalaam kula dardaarmay. وانا حديث كو النبي عليه الصلاة والسلام لها اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ميل كستو جوجتو إلهي سبحانه وتعالى كبق ان هداي حماني كاد عدنا وانا كدبجي حمانتي كاد عدي وانا جاس ايا ترتريا داد كان أخلاق وناقصان كل رقم والتلوين النبي الله محمد وصحابة السيئي إننا نلو باهي ولا ليالينا نكون رقمنا إن الدون كنا نكون ليالينا إن آخرنا نكون بتبادين وآيو تقوى ذكو والنبي عليه الصلاة والسلام وكل دردارمي صحابي والشيء النبي الله محمد وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كو أمري يا أيها النبي اتق الله نبي الله إلهي كبق والي ولا تدع الكافرين والمنافقين إلهي كبق إن حديث القدس إلهي سبحانه وتعالى وكي كنت المامي وفق دون كنتو تشوغو هتانو إلهي كبقا ما ننت قيامي إن لبقى قلني إلهي لها إني لا أجمع على عبدي خوفين فإن أمنني في الدنيا خفته يوم القيامة فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. adduunka wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala yiri adoomadayda laba baqinood kuma kulmiyo hadduu adduunka adoonku igaga baqo maalinta qiyaamo waa nabadgeliya hadduu se adduunka iga baqi waayo oo uu aniga iga baqi waayo maalinta qiyaamaan baqdin geliya. walaalayaal bale taqwadu waxaan oran karnaa waa dardaarankii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadihii hore iyo inaga bay nagu la dardaarmay. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وماذيه نقول أهل الكتاب يدي كبوحا نقول الدردار من النبي الله اللي يهي الله كعب الدون كان انت اللي تشوغا مرونا يكسن بالله وفق إلهي سبحانه وتعالى سي حقيقة وقابق ذا وعلم كل إنسان تقول هذا الشيء أنا وحي إلهي كأمرين سميصا وحي الوجود إلينا نسكا تكتاه إن عديد كستود كشو إلهي سبحانه وتعالى مخرج يمال أكبر حبكو سميني بل إلهي وحد المامي بل الآن تفيلين لغار ساقدون ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن دردارا كالبادو حوها حتى يحماني كارد عضو وحاد سميسا وناك الدبقي تمحوها وناك قاسا حمانتي ترتري بنادنكو وبشر وخضع يجفك مقارنة أي وخدعية habeen iyo maalin xilli walba qofka bini'aadanka waxa jira naftiisa wax xumaan iyo dambi u qurxinay tay naftiisa tahay shaydaankii adduunyada saaxiibadii xunxuna qofku laasim mararka qaar kood dadkuna mid badsadiya mid yaraystaba dambi mid walaaba waa u bandhigay. marka walaalayaal waxa dunuubta laynaga tirtirayo nabigu wuxuu ku tilmaamay in wanaag laga dabageeyo haday tahay istighfar haday tahay salaad la tukado haday tahay quraan la akhriyo in wanaag laga dabageeyo waayo xumaantu qofka haday ku biirto way haligtaa. xadiis qaar ayuu tilmaamay nabigu dunuubta dadku yar yaraystaan inay ka dhigan yihiin sida looxaan yar yar oo ku tusaaleeyay sida looxaanta yar hadii la ururiyo dab la qabadsiiyay dab weyn u dhasho dunuubta yar yarna qofka haday ku ururto way haligtaa saasi wax weyn noqota. marka walaalayaal marka hore waxaan la gudboon in dunuubta iska ilaalin qofka wixii ka dhacana inuu wanaag ka dabageeyo si ay uga tirtirto. dardaarankii uu dambeeyay nabigu bixiyay waxa uu ahaa wa khaliqin naas bi khulqin hasan dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqan. akhlaaq wanaagu waa waxyaabaha ambiyada loo soo diray bal nabiga ba tilmaamay waxa la soo diray
bucistu liyutamima makaarima alakhlaaq si aan u dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan akhlaaqduna qofka bini aadanka ah dadka uu la dhaqmayo waxyaabaa jira naftiisu ay ku riixayso oo ku kalifayso inuu dulmiyo waxyaabo una isagu naftiisa la jecleen ayaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu dadka kale ula yimaado taasina waxay ka soo horjeedaa akhlaaq wanaag bal nabigu waa kii lahaa waliyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilay qofku wuxuu jecel yahay dadka hawla tago ay tahay run ay tahay ballanta qofku ilaaliyo akhlaaqo wanaagsan kelmad koobsanaysa weeyaan ka walaalayaal waxaan ku soo koobi lahaa dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan markaa subxaanaka allahumma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk